madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Donald Trump ayaa digniin kulul u diray Iran isagoo ku hanjabay inuu burburinayo haddii ay soo weerarto Iran Mareykanka iyo danihiisa bariga dhexe. Fariinta uu soo dhigay boggiisa Twitter maalinnimadii Axadii ahayd ee shalay ayaa uu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Donald Trump haddii ay Iran doonayso inay deganaato waxay noqonaysaa dhamaadka jiritaanka Iran. 3 maalmood ka hor madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Donald Trump waxa uu muuqday in dib uga degay hadaladii dagaal doonka ahaa ee Iran ka dhanka ahaa isagoo sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Donald Trump inuu doonayo in Iran wada hadal la galo. Mar uu wariyay su'aal ku weydiiyay madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Donald Trump aqalka cad ee dalkaasi inuu Mareykanku dagaal ku qaadayo Iran iyo in kale ayuu madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Donald Trump ku jawaabay ma rajeynayo inaan dagaal ku qaado dalka Iran, laakiin tan iyo markaa waxa si kululaanaysa xiisada ka dhexoogan Mareykanka iyo saxaabadiisa gobolka Iran. Hase yeeshee marba marka ka dambaysa waxa hanjabaado culus la isku soo marinaya warbaahinta ama baraha bulshada. Naasir Cabdilqaadir Cabdiwahaab, Naasir Talasame, Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.